اللهم صل على محمد ومن نصر أحمد على السماء كبير المدد يا كيلاني يا كبير المدد يا كيلاني يا كبير المدد يا كيلاني يا عيش عزي ورفعتي واحترامي جلنا يا كيلاني يا كبير المدد يا كيلاني يا دعانا في شرقي أو بقربي ونزلي برد دمي جلنا يا كيلاني يا كبير المدد يا كيلاني بشرقي أو بغربي أو نزل ردمي إلى يا جيلاني غلا كبير المدد يا وأقضوا أو كان فوق هوائي أنا سبوق الله لكل القسام الأساتذة والطلاب أمانتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بعد التحية كلهم كان وين ما تسوي الميت هذا التاريخ وأنا تهيأ نحن وعثرت رجب كل أفر وعثرت أنا وثاني الهجرية كل أسيسا من عبيدات وتوكل في استحاد الرجل وعثرت مع الأربعاء وكلهم أخذوا عيساني الله سبحانه وتعالى أكبرهم ونصعنا طبعا الدرب كجرة وليس وكجرة حق عافماتك حق أمنية نعوض وكجرة وكلنا نقول عين المرشدة نعيد ذكر الجمل وأن رب الله سبحانه وتعالى وليس كجرة كالقادم حق عافماتك أن تدعو عيساني قلتين هذا كورونا فيروس مجال المقدسة دراسة بدن كوهيا marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan su'aalaynaa inuu naga qaado kulankan isoo agaasin macallimiinta waalidiinta waxaan Ilaahay maanta aan ku akhrinay kun yaasiin akhrinay oo ducaynayno bini aadamku inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala culays maanta hayso ugu hore cudurkan corona virus inuu Ilaahay kaga qaado marka ninkaas kulanka ah waxaa la geeyey bayt ulmaqdis
wuxuu kula kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam ambiyaal nabiyii ilaahay oo ka horreeyey ayuu meeshaas kula kulmay salaad ayuu ku dujiyey imaam ayuu u noqday taasina waxay daliil u tahay in rususha alle ambiyadiyo alle dhammaan in laga fadilay uu ka fadli badan yahay meeshaasuu salaad ku tukiyey kadib meesha ayaa marka asagii sayidina jibriil samadii ayaa la fuulay samadii ugu horreysay ayaa la fuulay waxay kula kulmeen samadaas abulbashar waayahay aadam abuuna aadam ayay meeshaas kula kulmeen way salaameen salaantii uu ka celiyey wuxuu ugu duceeyey khayr asaga iyo ummaddiisuba haddana samadii waxay tageen labaad waxay kula kulmeen ay arkeen samadii ay ku arkeen nabi ciise iyo nabi yaxyaa calayhim assalaam samada labaad ay joogeen haddana sidoo kale way ka tageen ila samaa'i thalitha samadii saddexaad ay tageen waxay ku arkeen nabiyuna waayahay nebi yuusuf calayhi salaam ay samadii saddexaad kula kulmeen samadii afaraad ay sii fuuleen waxay ku arkeen nebi idriis samadii afaraadoo joogo way ka sii tageen waxay fuuleen samadii shanaad waxay kula kulmeen nebi haaruun calayhi salaam sidoo kale way ka sii tageenoo waxay tageen samadii lixaad waxay ku arkeen samada lixaad waayahay nebi muuse calayhi salaam ayaa samada lixaad u joogay way ka sii tageen waxay sii aadeen samadii toddobaad بيت المعمور أي إذقلين وهو بيت المعمور فوق الكعبة مباشرة فوجد إبراهيم الخليل عليه السلام نبي الله وإبراهيم من ماشى كل من ثم ذهب إلى مكان آذي النبي عليه الصلاة والسلام وسنتقن مكان كاس جني إنسي وهي ملك لسعود ويستي meel uusan horna tegin ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gaaray jibriilna wuu waayahay soco uu yidhi iska soco yaa maxamed ka soco aniga meeshan ma dhaafi kari uu yidhi haddaan dhaafo waxaa igubaaya nuur ayaa igubaaya meeshan waayahay iska soco uu dhahay nabigu waayahay calayhi salaatu wasalaam safarkiisii uu sii watay ilaa xadrati alcaliya waalmaqaami shariif اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أخوة الكرام أولا يا سبحانه وتعالى من إلنا ثانيا جمعوا شرفت بدنا وماشي في كويمت أسين من أمها إلنا معلمينتي والدينتي والدولة فوق بلاش دمان طول إن شاء الله تعالى كلمة اللي يقرأ وهل أمه مارتنا كحال الإمام الشافعي الإمام النووي حي علي أنا أقول هذا الملهي معرفة إذا أسكير ومارتي أنا بان أولي هاي شيء قف مركو مؤهل أوي هاي أنصب أوي هاي إن مارتي وكشاكية هي مارت ليه كرا وفق روحها في قلمة مرك إن شاء الله تعالى إمام الشافعي سيد أبتهين مقيس بحليل محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان الشافعي بن صايب وحون ده شيء إمام الشافعي تاريخ هجري مكوها بولي كونتنك أيوة ده شيء waxaana la oofsaday 204 diimaarta ulamada khilaaf ma jira laakiin sidii hadda ulamada loo badan yahay 204 inuu dhintay baa la sheegay imaam shaafici waa imaamka madhabka maanta maartay hadaan nahay wadanka qariidan Soomaali oo badan in maartay madhabkiisa looga dhaqmo wuxuu ka mid yahay mid afarta على مذاهب كا ومذهب كودات وشعب بحي
culum badan jirtay madhab iska lahaa laakiin dadka shacbahay u badan waxa waaye imaam Abu Hanifa imaam Malik imaam Shafi'i imaam Ahmad bin Hanbal ayaga ayaa madhabkooda marta ugu badan ee marta mushaaca marta madawan oo marta aad marta islaamka loogu marta isticmaalo marta loogu dhaqmaa khaasatan Soomaaliya ahaan marka la yiraahdo waa madhabka aan haysano marta aan marta cibaadaysano aan marta dhammaanteen marka cibaado gudin imaam Shaafici marka wuxuu aad marta wuxuu ahaa أيامه مذهب كان أوريي وهو كلا أوريي مارت مذهب كلي مارت فن كلي هذا فن أصول الفقه لو هرينا أصيغ ذلك كواد أساسي وكما ذا كده من هيك دم بيا أصيغ مارت أيون غدين أتباع محمد بشر لا كالبشر بل هو يقوت بين الحجر من الحال الله محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو يقوت بين الحجر الله وقل يا ختام نبينا يا وقل يا ختام نبينا يا رؤوفا رحيما بمن أسرفا يغوت بين الحجار الله يغفر آمين آمين الله يغفر ممكن الله يجزيك ان شاء الله باذن الكريم كان الله يغفر آمين ما توت فوق صوتانو قريش بلطه وتسجيله بلطه جيره كل الحمد لله وكل هذا أركي وطن وفي هذا كنا بعيا إذا تقول تقول بلا marka inta taxaysto tiima xasto oo ilaahay la bariyo ayay waxa dhinaay ma keenay wax musiiba weyn musiiba yahay oo markay wada hoos galo ayaa dadka ku wajiyo ilaahay wuxuu doonaya intilako bari oo dadka ku taxaysto waan jiibaya ilaahay waa aqbalaya marka insha Allah bilakirim ilaahay marka Allah aqbalo الله نقبله أيوة وغير المقدرة حتى صلاة المصيبة إلهي هدية التهديد خاصة أنت تباسي الجزائر أول حديث